راشيك يا بحية الله راشيك يا بحية اللهم فارج الهم qaar ka mid ah waalidiinta ay ubadkooda ku jiraan xarunta Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday gargaar bini'aadanimo. inta maqlayso inta og inta maqashi waxa way xarun weyn waaye oo umada lagu daaweeyo meel kasta loogu yimaado intaas waxay ka rabaan cuntadoodi iyo raashinkooda iyo waxoodi Soomaalida caafimaadka qabay ka rabaan waa dad xanuunsan waa dad gargaar u baahan waa dad Ilaahay u baahan ninkan khayr Allah siiyo asaga baa u ordo asaga meelaha mantaqana daawadiis ugu keeno raashin haday rabaan asaa u keeno mantaqana muxuu ahay waxaan rabnaa inaad mantaqana muxuu ahay dibadda iyo gudahaba nin alla ninkii waxaayo oo Ilaahay wax si umadaan u soo kaalmee meesha wuxuu doctorku ku hayaa oo xarunta jooga dad masaakiinaha oo dhimar kala oo xanuunsan haya waxaan codsanaynaa dadka muxsiniinta in ay gacanta u fidiyaan waxa weeyaan dad badan baa meesha jooga waxaan idinka codsanaynaa inaad gacanta u fidisaan Dr. Abdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo ka warbixiyay xaaladda in ka badan 200 oo bukaan oo ku sugan xaruntiisa uu ku dabiibo dadka dhimirka la ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa madaxda dalka iyo shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in la soo gaaro daawo iyo raashin la siiyo bukaanada dhimirka ka xanuunsan. maanta baahida ugu weyn waa raashin waxaan leeyahay marka walaalaha dhalinyarada ku boobay Forgetting Mind Organization ama youth ama foundation Forgetting Mind ha joogaan Canada ama United States of America walaalaha Canada walaalaha Mareykanka Europe waxaan ka codsanaynaa walaalayaalow sida ugu dhaqsaha badan in nagala soo gaartaan raashin ilaa 280 bukaan oo gudaha jiifta ilaa 300 bukaan oo day care ah oo maalintii intay yimaadaan meesha wax ka cunaan daawada qaataan psychotherapy